garoonka Itixaad Stadium ee magaalada Manchester waxaa ku wada ciyaari doona Man City iyo kooxda kubadda cagta Huddersfield Town 9 saac iyo bar ciyaar soo gali doonta. City waxaa ka maqnaan doona Kevin De Bruyne oo 3 bilood la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono dhaawac soo gaaray dartii. Danilo iyo Ilkay Mangala ayaa dib ugu soo laabteen kooxda. David Silva ayaa la rajeynayaa inuu ku soo bilowdo kaas oo seegay kulankii Arsenal iyo Man City. Ciyaartan waxaa la fiirin doonaa City mar kale talaabada labaad ay u qaadi doonto horyaalka Premier League maadaama kulankoodii koowaad Arsenal ay la ciyaareen guul weyn ay gaareen. Pep Guardiola ayaa ku kalsoon ciyaartoydiisa wuxuuna sheegay inay rajeynayaan qaab ciyaareedkii hore iyo midka ay ku bilowdeenba in sidiisu ahaan doono. Guardiola walwal xoogan kama muujin dhaawac soo gaaray xidiga lagu magacaabo Kevin De Bruyne wuxuuna haystaa ciyaaryahanno kale oo bedeli kara booskaasi. Qarax Tube ayaad kala socotaan warbixintan fadlan subscribe channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Man City markii ugu dambeysay oo ay kooxdan la ciyaartay 10 gool iyo 1 ay ku badiyeen. waxa ayna ahayd ciyaar heerka labaad ee horyaalka Ingiriiska ka tirsan November 1987. Paul Stewart, David White, Tony Addock dhamaantood waxay dhaliyeen 3 ley. City ayaa ku guul dareysatay 4 kulan oo xiriira garoonkeeda inay gool ku dhaliso marka ay wajahayso kooxda la yiraahdo Troyes. Marna ma dhicin 5 kulan oo xiriira inay gool ka dhalin waayaan kooxdan ay wajahayaan. Guardiola kooxdiisa waxa ay haysataa ciyaartooy muhiim ah oo weerarka ku wanaagsan sababtoo ah 5 shoot oo on target ay sameeyeen xil ciyaareedkii la soo dhaafay kulankii Huddersfield Town ay la ciyaareen. Kooxda kubadda cagta Man City ayaa u baahan mar kale inay badiso labada kulan ee ugu horeeya furitaanka horyaalada ay ciyaarto sida ay caadiyan sameysay. City ayaa badisay 26 kamid ah 27 kulan oo Raheem Sterling gool u dhaliyo waana mid kamid ah ciyaartooyda ugu nasiibka badan kooxda kubadda cagta City. Hal kulan kaliya badin waayeen kulankaasna waxay bareejo la galeen kooxda kubadda cagta Everton waqti dambe isaga dhaliyay goolka.